dilalka loo geysto Soomaalida ka xamaasha wadankan South Africa ayaa soo taraya maalmihii la soo dhaafay ayadoo tirada Soomaalida lagu dilay wadankan South Africa ay gaarayso in ka badan 10 ruux. muwaadiniintan ayaa la dilay xilli ay ku guda jireen howlahooda ganacsi ay ku leeyihiin tuulooyinka wadanka South Africa iyadoo qaarkood la weeraray xilli ay dhex marayeen xaafadaha isla markaana ay gaari ku wareejinayeen alaabaha ay Soomaalidu ku iibiyaan dukaamada. dilkii ugu xanuunka badnaa ayaa dhacay habeen hore kadib markii koox aan la garanayn ay dileen ganacsade Soomaali ah oo marayay xaafad ka mid ah xaafadaha ku dhow magaalada Cape Town oo lagu magacaabo xaafadda Philippi, waxaana kooxda dishay ninkan ay meedkiisa geeyeen goob qashin qub ah ayagoo aanan ka qaadan waxna. dad xaafadda deganaa ayaa arkay meedka ninkan oo yaala goob qashin qub ah waliba uu ag yaalo gaarigii uu watay oo cadeynaysa in kooxda dishay ninkani aysan waxba ka qaadan. dilalka noocan oo kala oo haraan looga baran wadanka South Africa isla markaana ay ku yar yihiin ayaa waxa cabsi xoogan ay ka muujinaya ganacsiyada Soomaalida ee ku wareejiya alaabaha. sidoo kale dilalkan ayaa kala dhacay deegaanada Khaliija, Yanga hoos yimaada magaalada Cape Town iyo deegaano ku dhow magaalada Johannesburg, waxaana qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo la hadlay TV-ga qaranka Soomaaliyeed ay noo sheegeen in toddobaadkii la soo dhaafay ay sii xoogeysanayaan weerarada uga yimaada kooxaha waa dhacayagoo intaa ku daray in tirada dhimashada ay sii gaarayso in ka badan 10 ruux oo lagu kala dilay deegaano kala duwan. maantadan la joogo wadankan waxaa lagu dilay in ka badan 7 qofood, 2 Joburg, shanta kalena Cape Town, meelo kala duwan. location-ka wadankan waa xilligan oo kale xilli qaboobaha. South Africa inta badan ma shaqo tagaan xilli qaboobo markii la gaaro, marka waxay ku soo jeestaan dadka fooranka, marka dawladda ka qabanaysa ma arko. marka la gaaro xilliga qaboobaha ee wadanka South Africa ayaa waxaa laba jibaarma dilalka iyo weerarada la kulmaan ganacsatada Soomaalida ay ku xamaasho wadanka South Africa, waxaana dhibaatooyinkan ay yihiin kuwa si xarga goosanaya marka dambeysa. Cabdilaahi Qorshe, TV-ga qaranka Soomaaliyeed, magaalada Cape Town.